geesiga naftiisa iyo mustaqbalkiisaba u hibeeyey badqabka shacabkiisa ee markasta u heelan difaaca diintiisa dadkiisa iyo dalkiisa waa mid marka uu shahiido shakila'aan makaankiisu yahay jannatul firdowsa ka dhaawacmayna wuxuu sharaf cis iyo qadarintan ugu mudan kula noolaan doonaa dadkiisa sida caadada u ahayd iyagoo alla weyne subxaanahu wa tacaala garabkooda yahay halyeeyada ciidanka difaaca puntland waxay muddo 3 cisho ah ku guda jireen gulufyo ka dhana argagixisada daacish waxayna si dhammaystiran uga sifeeyeen cadowga deegaanada dharin iyo quraac ee toga jacayl iyagoona maanta isku ballaariyey dhammaan buuraha iyo deegaanada ku teesan togagaasi in ka badan 127 sharwade ayay ciidamada difaaca puntland ka dileen kooxda argagixisada daacish iyagoona cagta u saaray firxadkooda jid iyo jahabeelka ah ee cirka iyo dhulkaba laga gumaadayo saraakiishii hogaaminaysay howlgalkan lagu ciribtara argagixisada oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey guulahay ciidanku gaareen iyo siduu u dhacay howlgalkii muddadii 3 bari ee ugu dambeysay ay ciidamadu ku jireen waxaan rabaa inaan ka warbixiyo 4 iyo 5 iyo 6 oo maanta khasaaraha aan u geysanay cadawga khawaarijta ee nabadiidka ee buurahan calmiska ka samaystay saldhigyada waaweyn intaanu anagu aragnay oo aanu istul taagnay 57 qof meel baa lagu dilay 57 qof waxaan u malaynayaa 7 qof baa waxay ahaayeen Afrikaan kontokuna cadaan buu ahaa 70 meel baa lagu dilay 70 kaasi waxay ahaayeen carab waliba ajnabi kale ku jirin Aasiyaana oo bariga dhexe ah oo dhowr dawladood isugu jira waxaan rabaa Soomaaliya iyo Puntland iyo madaxweynaha Puntland inaan u sheego dalkeena waa la qabsaday dad ajnabiya oo dawlada kale ka yimaad ku soo duulay ciidamada Puntland markii la qaybsho cadawga buurtaan jooga ninka ugu dhow baan ahaa mana aaminsanayn dad nooca kale jooga markaan xaqiiqada sheego ma aanan aaminsanayn waxaan Soomaaliya iyo Puntland rabaa inaan u sheego dalka waa la qabsaday duulaanka aan ku wadno mid ka ballaaran baa la rabaa ka ballaaran ka kala baxsan ka awood badan qofkaasi meeshaasi ma kuwa qof waqtiga baa la oran karaa dhimashadu waa dadka muslimka ah iyaga waxay u noqonaysaa marxanti meel kasta ku jiraan inaan uga hari doonin inta hadhayo firxadkan uga daba tagi doona hadii la yiraahdo ciidankana moral intaas ugu filan inay waqtigiisa oo god ku jiro ugu tagi doonaan sababtu waxa keenaya waxa noo heelinayaa dhagaxa iyo dhirta iyo dhulka noo heelinaya oo dadkii dhulka lahaa baan nahay dhulkii baa noo heelinaya cimilada noo heelinaysa waan ku guuleysanaynaa insha Allah ballantii aan hore u qaadnayna oo dadka reer Puntland ka ballan qaadnay ugu horeeyay madaxweynaha Puntland operation kowka ah waxa weeye waxaan u sheegaynaa inaan fulin doono ballantii insha Allah waxaan kamid ahay jiilka hadda wadanka jooga oo waxa weeye u soo kacayo saraakiisha kamid ah waxaan rabaa inaan meel bisoo arsanayay inaan u kalsoonaataan maanta meeshaan marayno in si kalsooni leh dadka shacabka iyo kuwa kale oo mas'uuliyiinta naga dambeeya inay walwal ka qabin waxa wadanka ku soo dilaa garanaysaa nin ajnabi looga yimi waxa weeye meel fog aan waliba ma aaminsaneyn hortay Puntland gaar ahaan Soomaaliya gaar ahaan Puntland baa waxa qof banaanka ka yimi oo ajnabi ah oo ku soo duulay oo haddana intaas oo dal Syria iyo meel ka shay ka yimi ayaa saldhig intuu ka dhigto Puntland gudaha soo galo ayaa haddana wuxuu disayaa inuu ku noolaado laakiin waxa sheegaya inay waxaas waxba ka jiraan tahay haddii ay waxyaalo badan ku soo gabadeen hadda waxaas iska baabeen waxaan tusaale uga dhigayaa dagaalada hadda dhacay waxaan aaminsanahay inay haddii caqli leeyihiin inta nool inay haddii caqli leeyihiin soo dhiibi doonaan insha Allah tan u talin maayo wiil ka yimi oo balag leh Ethiopia wiil balag leh oo ka yimi Tanzania وتنسانيا يا كقال بدن ورما أنغو إسلام بان نلو سو هونيا شاati kale waa waxan dhacay dalkan ninkii lahaa baa jooga dawlad baa joogta Soomaali baa leh Puntland kama talin doonto mana suuroobayso mana dhici doonto ciidanka Puntlandna waa isku filan yahay mugina waa u buuxaa geesiyaasha aad baan ugu hambalyeeynaya waxaad ogaataan markasta meel kasta oo joogan Puntland meel kasta oo joogan inaan kaga daba tagayno ku soo qabanayno wallahi waa ku soo qabanayna wabillahi waa ku soo qabanayna hadii ilaahay inaan dib uga laabanay ilaa meel nolol ku sheego
inaanaan dib uga laabanin qofka ajnabiga loogu talagalay in waddanka lagu waardeeyo aan wax qori qaadan laakiin looguma talagalin inuu qori qaato isagu sababta qoriga u dhiibtay cid mataqaana ku casbanteen toona ma jirto horena waa u sheegay marka taasna si aad u aragtaan waxaan leenahay wasaaradaha ku shuqul leh mataqaana caafimaadka ku leh mataqaana hay'adaha caalamiga inay u yimaadaan waqtigooda nooga ururiyaa waddanka ma aan ogolin waqtigooda aan ogolayn inay ku noolaadaan baan aan ogolayn dhammaan waa ka safaynayna haddii lahayn aad iyo aad baan waxaan halka uga mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha Puntland inta dhimantay Ilaahay u naxariisto inta dhaacana Ilaahay u bogadhayo meesha ku dhibateen waa geeyigiin inagaana u harin hadda jilba bedela jiilka maanta waddanka difaaci lahaa waa inaga inta gubaabada mataqaana ku joogtaa inta kale tan hoos soo kacdo naga shaqadii dalka iyo dadka aan u haynay wali waa wadnaa hawl kale daal wali waa hogad baan leenahay intii ku dhimatayna saraakiisha naga dhimatayna waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto wax xaq bay ku dhinteen inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay Ilaahay ha bogadhayo waana sii wadi doonaa ka daalmayno wax iska yar baa haray waana loo dhimanayaa kuwa nool baa dhiman doona saraakiil baa dhiman doonta dhale mataqaana ciidan baa dhiman doona waa u dhimanaynaa diyaar baan u nahay waxaanu aragnay intii aan howlgalka ku jirnay dad ka cararaya qalabkoodii raashinkoodii biyahoodii saanadoodii ka cararaya waxaanu aragnay dad ayaga iska cararaya oo qofkooda dhaawaca aan qaadanayn waxaan aragnay dad meydkoodii ka cararaya oo aan qaadanaynin dad mabda ku dagaalamaya oo mowqif ku dagaalamaya inaysan ahayn bitaas oo cadaynaysa waxaanu rabnaa intii hal qof kaga nool yahay buuraha sida madaxweynuhu bay iclaamiyeen aanan ka harin taliyaha howlgelinta ciidanka BMBF Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac ayaa dhankiisa sheegay sida shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka reer Puntland ay la socdeen guulihiis daba joogga ahaa ee ciidamadu ay gaarayeen ayay meeshooda ka sii wadeen maanta ugu dambeysay oo ay soo gabagabeeyeen inta badan togii jaceleed oo ay ka socdeen ilaa iyo 30 kilomitir oo gudaha u galeen howlgalkaas ciidanku sida muuqata waa bariyay baa la sacab laguma dado waxa buuraha saaran oo nimankii daacishta ahaa ee waddankan ku soo duulay ee qaarkood ay ka yimaadeen 1 kilomitir 2 kilomitir ay ka soo duuleen halka waa kuwa waraabo ku cunaya maanta waxa way meedkoodii guushaas Ilaahay ka sokow waxa soo yeeshay shacabka reer Puntland oo taageeraya ciidamadooda ciidamada difaaca Puntland sidii hore loogu yaqaanay hore bay u guuleysteen way guuleysan doonaan waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celino dhammaan ciidamada difaaca Puntland halkan ku jira oo dagaalkan qaybta ka ahaa sida nafta huraalnimada leh ee dagaalkan ay u wajaheen iyadoo aad la socotaan caqabada iyo waxa ka jira meesha iyo dabeecadda iyo meesha nimanka dhufaysada ay ku jireen waad u jeedaan meydadkooda marka aragteen xabadda meesha kaga wada taalo madaxay kaga wada taala wajiga ka wada toogteen waxa weeye arintaas Ilaahay ka sokow guushaas waxa weeye shacabka reer Puntland waa mid ay soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed arintan waxa weeye marka waxaan rabnaa shacabka reer Puntland u sheegno inay ku seexdaan ku soo toosaan aysan ka walwalin ciidankooda difaaca ku jira oo ka sifeynaya argagixisada in ay guul darro u soo hoyaan halganka geesiga shahiidka ah naftii huraha ah iyo iimaanka halyeyga difaacanaya sharafta maalka masiirka iyo gobonimada dalkiisa iyo dadkiisa waa mid mar kasta guul ku soo hoyanaya dagaal walba uu la galo khawaarijta duulaanka ku ah dalkeena iyo dadkeenana waxa uu noqonayaa mid ay guul iyo sharaf ka soo hoyaan